Asalaamu calaykum, waa idin salaamay. Waa Engineer Axmed Kaafi oo caawa idiin record garaynaya tutorial. Tutorialkan waxaan ugu talagalay shaqaalaha Lul Solutions ama developerska Lul Solutions. Gaar ahaan midka caawa aan duubayo waxaan doonayaa in aan idin tuso qaabka aad u dhisi kartaan application back-endiga ah idinkoo isticmaalaya ka faa'iidaysanaya generatorska wax loo yaqaano. Inta aanan guda gelinin sida applicationka aad u babadalaysaan, waxaan rabaa inaan 5 daqiiqo ama ugu badnaan 10 daqiiqo aan uga hadlo qaab guud applicationku mataqaana ay u salaysan tahay. Waxyaabaha marka ugu horeysa horta aan doonaya waxa weeye waxaan anagu isticmaalnaa generators. Halkii aan codeka gacanta ka qori lahayn, waxaan isticmaalaynaa generator codeka noo qoraya. Anagu generatorka ayaan qoraynaa, waxyaabihii aan doonaynay oo logica ah asagoo templates ah ayaan gashanaynaa. Generatorskan waxay noo generate garayn karaan stack kasta oo applicationka ka mid ah, ama ha ahaato qaybta front endiga ama ha ahaato qaybta back endiga. Marka waxaan doonayaa inaan tuso waxaan isticmaalnaa Yeomankan, bahalkan la yiraahdo Yeoman. Yeomankan generators badan buu leeyahay oo programmo badan lagu sameeyey. Halkan meesha aad ku aragtaan discover generators haddaa ku dhufatid, waxaad arkaysaa generatorro badan oo lagu qoray Yeomankan. Mid ka mid ah waxaa weeye JHipster. Kuwaas ilaa dhowr boqol oo xaba weeye haddaad AngularJS generator doonaysid, haddaad React doonaysid. Marka midka anaga aan doonayno waa JHipster, wuxuuna ku salaysan yahay Java back-endiga oo ah Spring Boot ku salaysan iyo Hibernate iyo JPA. Front endigana wuxuu ku salaysan yahay Angular oo front endigiis. Isaguna wuxuu leeyahay xataa modulo badan buu sii leeyahay oo gudihiisa haddaad clientyada kala duwan, misal hadda clientigan Angularka ah waxaad ku samayn kartaa webka keliya ayaa lagu samayn karaa. Isagoo waxaad samayn kartaa applicationada mobilada lagu samayn karo oo ama React ha ahaado ama Ionic ha ahaado oo applicationo sida Android iyo iOS iyo Windows iyo wixii lamida ku generate garaynaya. Marka waxaan aadaynaa hadda tusaale ahaan midkan JHipster ayaan ku dhufanaynaa oo generatorkan waxaa la sameeyey sidaan idiin sheegay iyadoo la isticmaalayo Yeomankan. Yeomankan waa qaab loo sameeyo codeka maalin walba aad gacanta ku qorayso. Tusaale ahaan ka soo qaad in aad warshad samaynaysid, macnaha haddaad samaysid Yeoman generator waxay la mid tahay adigoo warshad dhisay. Warshadaasa waxay kuu samaynaysaa productiga aa u baahnayd oo ah applicationkii aa qori lahayn. Laba option ayaan haysanaa: in aan applicationka si toosa u bilaabno oo aan anagu gacantayda intaan iskugu geyno Spring Bootka aan gooni u download garaysano, Angularka aan gooni u download garaysano, aan isku qabanno waxaan doonayna aan gelino, ama in aan JHipster isticmaalno oo ayagoo sida ninkan Julian Depo la yiraahdo ayaa isku xiray. Maadaama maalin walba wax kusoo noqnoqonaya ay tahay, wuxuu isku xiray generatorskaas isku xiray. Marka haddii aan tagno qaybtan JHipsterka, haddaa ku dhufatid JHipsterka halkan buu ku geenayaa oo ah boggiisa ugu horeeya. Tutorial af Ingiriisi ayaad ka heli kadhaa, balse anigu waxaan isku dayaa caawa inaan idin siiyo. Sidaad aragtaan waxaa weeye calaamadan waa calaamadii Spring Boot lagu daray Angular, waxay la mid tahay JHipster. Laakiin hadda wuu ka badan yahay xaqiiqdii. JHipsterku intaa wuu ka badan, Angular kaliya xataa wuu ka badan yahay. Reactive aad ku samayn kadhaa, waxyaabo badan oo kale aad ku samayn kadhaa. Laba qaab ayaad u install garayn kartaa. Sidaad aragtaan client sideka dhinaca applicationka la sameeyo laba qaybood bay noqonaysaa: dhinaca client ah oo iyo dhinaca serverka back endiga ah. Dhinaca clientiga wuxuu ka koobnaan karaa HTML, CSS, Bootstrap, Angular, jQuery iyo waxyaabo badan oo mataqaanaa JavaScript related ah oo la xiriira ilaa iyo testingka uu ku jiro. Dhinaca back endigana waxaad ku samayn karnaa sida aad aragtaan Spring Boot uu ku samaysan yahay, Spring Security baa ku jira. Haddaad web services aad isticmaalaysidna waxaa jiro, waxaad isticmaali kartaa registrygan console ama la yiraahdo, ama midkan kale ee Netflix ay soo saartay registerka. Mavenku waa isagana waa build toolkii. Hibernate-kan waa sidii database-kii kugu xirayay, iyo Liquid Base, MySQL, intaasoo database ayuu taageeraa. Marka waa system aad casri u ah. Haddii la sameeyo dhinaca deploymentiga, markaad applicationkaaga dhamaysid waxaad ku deploy garayn kartaa AWS-kaad ku deploy garayn kartaa, Heroku aad ku deploy garayn kartaa, Cloud Foundry-gan aad ku deploy garayn kartaa, oo serverro badan ayaa si automatic ah iyo generatorku ku leedahay. Halkaas iyo geli asagaa systemkii automatically ku deploy garaynaya. Waxa ugu quruxda badan oo aad u isticmaalana waxaa ka mid ah Docker baa ka mid ah. Haddaba laba qaab ayaad u install garayn kartaa. Qaab waxaa weeye asagoo binary ahaan ah in aad install garaysatid oo ay computerkaaga bin folderka bay gelaysaa.
ma arkaysid markaas waxna kama bedeli kartid middan, laakiin wuxuu kuu generate gareynayaa applicationkaas oo ah basic, adigoo waxay la mid tahay adigoo code qorayay ilaa iyo dhowr bilood 3 bilood codekii projectkaa ka shaqayn lahaa ilaa heerkaasuu kuu geenaya, kadib applicationka wax kasii bedelaysa. Applicationkaas marka ma fiicna haddii generatorku hal mar keliya inta application aad samaysid maalin walba applicationka aad ka bedeshid. Annaga Lul Solutions waxaan isku dayaynaa in aan maaragtay applicationka generator aan samayno, generatorkaas aan wax ka bedelno laftigiisa, ama qaab aan extend gareyno oo qaab module ahaan aan u samayno, ama qaab maaragtay si toos ah aan isaga wax uga bedelno, inkastoo si toos aan uga bedelna. Marka caawa waxaan idin tusayaa qaabkan, halkanba si fudud uga arki kartaa, haddaad tijaabisaan waad arki kartaa. Laakiin aniga waxaan rabaa in generatorka laftigiisa ee la sameeyey ee jhipsterka ah inta aan download garaysto, wuxuu generate gareynayay laftigiisa aan codekiisa wax bedelo. Marka qaabka ugu horeeya waxa weye horta generatorkii codekiisa laftigiisa aan ka bedelayaa, si marka uu applicationka generate gareynayo intii ayagoo ay ugu talagaleen keliya aan la generate gareyn, balse aniga qayb kale oo aan ku darsaday la generate gareeyo. Marka waxaan sameynaynaa, wuxuu ku xiran yahay haddaad kor aadid applicationkan, haddaad websitekan, haddaad jhipsterka haddaad kor tagtid, waxaad arkaysaa meesha download ay ku qoran tahay halkaas. Meesha waa meesha source codekiisa laga download gareeyo jhipsterka. internetka iga istaagay, wax yar raalli ahaada. Okay, pagekan buu ku geynaya. Pagekan markuu ku geeyo, anigu si toosaan doonayaa in codekii jhipsterka ee javascriptiga iyo yeomanka ku qornaa in inta aan koobiyeysto aan clone garaysto oo aan computerkayga soo geliyo, kadib aan wax ka bedelo, aan raraan gareeyaan doonaya, oo idin tuso sidii back endiga ama spring boot ha ahaato ama configuration kale ha ahaato aad wax uga bedeli lahaydeen. Marka haddaa halkan ku dhufto, wuxuu geenayaa GitHub meeshiisiibuu geenayaa, oo kan waa GitHubka. Ogow ha isku khaldinina, codeka laba code weeye. Code waa codekan generatorka ee jhipsterka ah, codena waa applicationka uu generatorkan generate gareeyo, kadib baa kaasaa wax kasii bedeli kartaa. Haddaad doontana sidiisaad ku isticmaali kartaa. Marka laba code ayaan ku kala furaynaa, laba IDE oo kala duwan baa ina tusi doonaa, mid walbana si gooniyaad wax uga bedeli kartaa. Marka midkan waa kii jhipsterka, waan download garaysanayaa, waan clone garaysanayaa. Haddaad doonaysa inaad clone garaysid, waxaad ku dhufanaysaa meesha clone iyo download ay ku qoran tahay, halkaas yaad ku dhufanaysaa. Clonekan ku dhuftay, URL buu ku siinayaa. URL-kaasaad koobiyeysanaysaa oo ah repositoryga meesha ay geliyeen nimanka jhipster sameeyeen, GitHubka meeshay ka geliyeen ah. Waxaan koobiyeysanayaa URL-kaasaan koobiyeysanayaa, ii koobiye baan leeyahay. Waxaan tegayaa kabacdi command line-kan tegayaa. Waxaan fiirinayaa meesha aan joogo, horta isaga raalli ahaada wax yar. cd da. Okay, waxaan rabaa inaan tago, folder baan samaysanaynaa tutorial ah. Horaan u sameeyey mid la yiraahdo Lul Solutions, markaas nagee baan leeyahay Lul Tutorials ama Lul Training. Lul Training haddaa fiirisid, waxaa ku jira laba folder baan sameeyey, mid back end development aan ugu talagalay iyo mid aan ugu talagalay front end development aan ugu talagalay. Midka waxaan tegaynaa marka hadda back endiga, maadaama tutorialkan uu aad ugu salaysan yahay, inkastoo xataa application front end aan generate garayn doono. Waxaan leeyahay back end gee. Okay, waxba kuma jiraan sidaad aragtaan. Waxaan marka ku bilaabayaa marka ugu horeysa, waxaan clone gareynayaa bahalkii, anigoo isticmaalaya Git. Inaad Git download garaysatid waa muhiim oo aad ku shubatid. Marka waxaan leeyahay Git clone. Gitku waxa weeye qaab mataqaanaa software kaaga soo saaraya GitHubka ama repositoryyaasha nooceedoo kale camila, sida Bitbucket oo kale kaaga soo saaraya codeka ku jira, kuusoo koobiyeynaya oo halkan kuu keenaya ama kuu ogolaanaya inaad wax ka bedeshid. Marka iisoo clone waxa weeye waxa ku jira cloudka ee GitHubka ku jira, codeka ay nimanku geliyeen, aniga halkan iisoo geli oo iisoo download garee. Adigoo zip ahaan waa u download garayn kartaa, qaabkana waa u download garayn kartaa. Markaas qaabkana u download garaynayna, noo soo download garee baan leeyahay. 10% maraya uu soconaya, ma dhaqso si boobsiis buu ku samaynayaa.
een, uu dhameeyey. Haddii hadda marka aan fiiriyo aan dhaho ls aan dhaho waa sidaad aragtaan jhipsterkii baa la sameynay oo generatorka ah. Generatorka intaanan gudihiisa u gelinin oo aanan waxaan rabaa in aan sameeyo folder kale oo hadhow applicationkan generatorkan markaan isticmaalayo application uu ii gelinayo. Marka waxaan u bixinayaa lul chat baan u bixinayaa folderkaas. Waxaan leeyahay make directory baa loo soo gaabshay baan ku dhufanayaa ii samee baan leeyahay directory la yidhaahdo lul chat oo empty oo waxba aysan ku jirinin. ls haddaan dhaho hadda laba folder baan haystaa, midkii waxaan haystaa lul chatkii iyo waxaan haystaa key jhipsterkii. waxaan gelayaa marka kan generatorkan gelayaa. Okay. Haddaad fiirisid waxaa ku jira foldera badan ama faylal badan baa ku jira. Meesha midka ugu muhiimsan waxaa weeye midkaas generatorka meesha ay ku qoran tahay. Waxaa ku jira haddaan gudihiisa galno waxaad arkaysaa generatorra badan oo kala duwan. Isagoo GitHub ahaan waa u fiirin karnaa maadaama codeka uu GitHub yahay. Waa kana meesha hadda haddaad fiirisid generatorska waa kaas folderkii aan aragnay halkaasuu ku jira. Haddii aan ku dhufto waxaad arkaysaa generatorra badan baa ku jira oo ay jhipsterku uu leeyahay ama modules wax loo yaqaano kusi gudihiisa ugu sii jira. Waxaa ka mid ah entitieska midkan generate gareynaya entitieska oo masalan business logic marka aad doonaysid in applicationkaaga aad ku dartid maadaama ay tahay applicationkan hadda aan generate gareynayno wax iska folding la yiraahdo ama bare bones waxay dhahaanoo applicationkii oo ilaa iyo feature ilaa iyo xad loginkii leh html mataqaana screen oo home page leh user management iyo ama useradii leh iyo waxyaabo kale qayb admin leh. Haddaad fiirisid waxaas oo dhan waad ku arkaysaa. Laba qaybood bay leedahay qaybta front endiga ah clientiga halkan qaybta angular js-ka halkaas ayay codekiisa la geliyaa. Sidoo kale waxaa jira serverka codekiisa ama midka aan samayn doono halkaas ayaan gelinaynaa codeka macnaha templateka noo generate gareynaya. Marka waxaan rabaa in aan IDE isticmaalo ma doonayo inaan mar walba sidan u arko. Saana waa u samayn karnaa haddaan rabna gudihiisa cd generators inta dhahno ayaan eegi karaa waxa ku jira oo wixii hadda aad arkayseen waa kuwana dhammaantood. Qaybtii luqadaha waa tana, qaybtii serverka waa tana, qaybtii clientiga waa tana iyaduna. Marka waxaan rabaa inaan ku furo Android bahalka maxaa la yirahdaa Visual Studio Code ayaan ku furayaa. Sida aad aragtaan hadda actually waan xirayaa. Haddaan xiro asagoo dhanba xiro haddana aan soo furo si aad u aragtaan Visual Studio Code. Okay, Visual Studio Codekii waa kana. Waxaan leenahay project E4 baad ku dhihi kardhaa ama open baan leenahay. Open markaan dhahno waxaan tegaynaa folderkii aan ku sameeyey maxaa la yiraahdaa meeshii aan geliyey generatorkii waa kana. Waxaan gelinay lul training baan gelinay back end baan sii gelinay kadibna generatorka waa kana. Midkan IDE-ga generatorka IDE-ga aan ku furayo waa Visual Studio. Hadhow programkan markii aan isticmaalo generatorka ah oo aan generate gareyno applicationkan lul solutions la yiraahdo hadda waxba kuma jiraan. Haddaad folderka fiirisid dib baan uga noqonayaa. Hadhow markaan generate gareyno kana waxaan ku furi doonaa Eclipse baan ku furi doonaa. Waa arkaynaa marka E4 baan leeyahay generatorkan open baan leeyahay folderkaas. Codekii oo diyaarsan ayuu halkan ii soo geliyey. Sidaad aragtaan waa kana codekii GitHubka aad ku arkayseen. Generatorskii haddaan ku dhufto entitieskii waa kuwana, clientigii waa kana, serverkii waa kana. Marka haddii aan doonayo inaan wax ka bedelo si fudud ayaa uga bedeli karaa in aan ka bedelo. Masala tusaale ahaan codekan la generate gareynayo waxaan rabaa inaan ku darsado qaybta serverka ayaan rabaa inaan wax qayb kale ku daro. Qaybta serverka waxay leedahay wax la yiraahdo templates. Templatesku waa qaybtii source-ka aragtaan waa qaybta meesha javaga la gelinayo codeka aad rabtid. Templateska waxaad gelinaysaa wax qayb haddaad horey u samayseen project ah
Spring Boot wuxuu leeyahay structure buu leeyahay. Structureka wuxuu leeyahay source buu leeyahay ama main baa hoos imaanaysa iyo classyadii baa ku jira resourceskii baa ku jira oo ay ka mid tahay mataqaanaa HTML-kii iyo ama configurationskii kale. Haddaad gudaha galno sidaad aragtaan waxay la mid tahay projectiga caadiga oo buu eg yahay gudihiisu. Laakiin waxa halkan ku jira ma ahan Java. Hadhow wuxuu template-kana waxaa laga generate garayn doonaa Javaga mataqaanaa programkiisa qaybta client-gii waa kana haddaad aragtaan. Haddaan marka fiiriyo qaybta webka ah oo RESTful web serviceska ah ayaan tegayaa. Waxaan leeyahay RESTful web serviceskan gudaha hoos u gelayaa. Classyo badan sida aad arki doontaan. Classyadan waa classyadii ama waxa controllerskii loo yaqaanay ee front endiga ahaa ee APIs-ka ku jireen halkan bay ku jiraan. APIs-ku waxa weeye features macnaha feature-rada ama shaqooyinka ay qaban karaan classyadan. Tusaale ahaan kan user-kan haddaan fiirino waa qaybta login-ka iyo user management-ga loo isticmaalaa. Haddaan gudihiisa galo waxaad arki kartaa haddaad aragtid fiiri hadda halkan oo kale waxa weeye waxa loo yaqaana placeholders weeye. Package name variable ayay qabanaysaa. Tan macnaheedu waxa weeye waa syntax sida JSP oo kale camal la mid ah oo maadaama qof waxaan uu generator yahay qofku marka uu applicationkiisa package bay leedahay. Masalan packageka waxaa ka mid ah marka sida tusaale ahaan anagu samaysan doono kale waxa weeye com.lulsolutions.lulchat way noqonaysaa. Markii ayagu ay sameynayeen ay diyaarinayeen generatorkan magaca aad baxsan u bixin doontid ma yaqaanaan. Marka waxay sii qabsadeen placeholder magacaas aad ku bedelaysid bay sameeyeen. Placeholderkan marka waa tusi doonaa command line-ka ayaan ka gelinaynaa magacaas halkan ayuu toos uga bedelayaa kadibna wuxuu noo generate gareynayaa. Markuu application-ka la generate gareeyo magacii aan command line-ka gelinay ayaa lagu bedelayaa package-kan qaybteeda hore kadibna maaragtay folderradan iyo classyadan bay sii hoosgalaysaa. Marka hoos haddaan fiiriyo oo aan idiin sharaxo waxa uu yahay user resource-kan haddaad fiirisaan waa qaybtii haddaad horey u fiirisay application Spring Boot waad dareemi kartaa waxa uu yahay. Balse waxa ugu muhiimsan horta waxa weeye halkan hadda aad arki kartid sida list users API-gan ee list user-ra ah isii dhahaya oo authentication u baahan admin ah inaad leedahay iyo waxaas oo dhan buu kuu sheegaya. Marka anagana waxaan rabnaa inaan ku daro API kale baan ku darayaa maadaama nimankan ay horey u generate gareeyeen qaybtan anaguna qayb kale aan ku darsanaynaa. Waad koobiyeyn kartaan kuwan mid ka mid aad koobiyeyn kartaa sida doontaad uga bedeli kartaa. Marka anigu waxaan rabaa text editor-kan baan tegayaa. Horey ayaan u sameeyey code-ka aan raba inaan meeshan geliyo. qaybtan aysan idin wareerin waa idinka tirtirayaa. Code-ka aan raba inaan geliyo waa intan waan koobiyeysanaya command C baan leeyahay. Haddaba meesha aan raba inaan ka geliyo markaa waxa weeye waxaan ku noqonayaa Visual Studio-gii aan ku noqonayaa code-kii waxaan tegayaa meesha u koreysaan tegayaa si ay mar walba clear u ahaato oo API-ga ugu horeeya ee ah userska ayaan ka hormarinayaa. Halkaasaan galinayaa si aad u aragtaan. Halkaasaan ku paste garaynaynaa. Marka waxaan waa maxay hadda aan sameeyey afartan line ama saddexdan line aan sameeyey waxa weeye waxaan leeyahay API la yiraahdo show lul changeska hadda aan sameynay markii aan API-gaas waco waxaan doonayaa methodkeedu hadda waa show lul change baan u bixinay. API-ga magaciisana waa kana show change la yiraahdo. Waxaan doonayaa inaad ii soo celisid qoraalkan magarad weeye macnaheedu. Marka waan save gareynayaa hadda waan save gareynayaa kadib waxaan tegayaa saasuu iigu save gareysan yahay. Waxaan tegayaa command line-kii baan ku noqonayaa. Command line-ka markaan ku noqdo xageen joogaa generator-kan ku jira hoos dib baan uga baxayaa. Very good. So marka laba qaab baan samayn karaa
maadaama computerkaygan uu ku jiro jhibister aan horey ugu shubay oo anigoo isticmaalaya npm sidii hadayta aan websitekeeda ka tusay iyadoo binary ku jiro, haddii aan iraahdo jhibister aan qoro oo aan damca inaan applicationkan generate gareeyo, wuxuu isticmaalayaa versionkii aan hadda ka hor 4 bilood ama 5 bilood ka hor markaan computerkan ku shubayay jhibisterka ayuu igu shubaya. Marka ma doonayo, waxaan doonayaa inuu isticmaalo dib baan u noqonaya wax yar sayniso. Waxaan doonayaa inuu isticmaalo codekan aan soo generatorkan aan kasoo download gareeyay githubka aan kasoo download gareeyay ayaan doonayaa asagoo development ahaan ah inuu isticmaalo, waayo bidka aan wax ka bedelay waa kan kale meel kaluu geliyay bin ah aan arkaynin. Marka aan doonayo inaan kan isticmaalo waa inaan u sheegaa computerka haddii jhibister aan type gareeyo aan iraahdo generate garee application generate garee, ha isticmaali midkii aan mar hore soo download gareeyay ee waxaa isticmaashaa midkan isticmaal weeye macnaheedu. Marka sida aan u dhahayo waxa weeye waxaan leeyahay gudahan u gelayaa cd generate baan leeyahay generator. Markaan hadda gudihiisaan ku jira sida aragtaan, waxaan leeyahay marka waxaan dhihi karaa npm link baan dhihi karaa, ama waxaan dhihi karaa labada waa isku shaqay qabtaan, npm-ka iyo yonkan labaduba yon ama yon link baan dhihi karaa. Midka aan doonaan leeyahay markaas labadu waxay isku shaqay qabanayaan, isku sibay kugu link gareynayaan, macnaha waxay u sheegaysaa markaa jhibister type garaysid in uu kan isticmaalo. Marka npm link baan leeyahay, hadda wuxuu link gareynayaa applicationkiibu hadda link gareynaya. Sida aragtaan wuu ii sheegay in uu link gareeyey uusan isticmaali doonin midkaas weyn ee halkaa ku jira, uu isticmaalayo midkan hadda aan generate gareynay qaybta trainingka aan gelinay uu isticmaalayo. Okay, waxaan hadda sameynayaa marka waxaan generate gareynayaa applicationkii aan doonayay ahaa jhibisterka ahayd ayaan generate gareynayaa. Waa inaan dib uga baxaa marka halkan generatorka uga baxaa folderkii aan doonayay inaan ku generate gareeyo ee ahaa lul chatka ahaa ayaan tagayaa. Waxaan leeyahay marka halkan iigu generate garee baan leeyahay yo. Waxaan dhihi karaa marka jhibister keliyaan qoraya yo. Haddaan dhaho yo jhibister kii kalu isticmaalayaa ee ahaa bahalkiisan waan dhihi karaa balse wuxuu isticmaalayaa midka globalka ah ee markaan install gareynayay aan global ahaan u install gareeyay, ma isticmaalayo midkan developmentiga ah ee halkan aan geliyay. Marka haddii aan doonayo inuu kan hadda isticmaalo, intan keliyaan isticmaalaya jhibister keliyaan leeyahay generate garee. Okay, wuxuu weydiinayaa su'aalo badan marka oo ay ka mid tahay applicationka aan doonaya noocee weeye. Haddaad fiirisaan halkan haddaad fiirisaan meeshan waxaa ii sheegayaa su-aasha ii weydiinaya waxa weeye which type of application would you like to create? Application noocee ah ayaad doonaysaa inaad create garaysid? Dhowr nooc oo application ah ayaad create garayn karnaa. Middan oo ah monolithic application ama macnaheedu waxa weeye application isku xiran ee hal meel wada gelinaysa qaybta front endiga iyo qaybta back endiga hal meel wada gelinaysa oo aan kala qaybsanayn. Sidoo kale waxaad generate garayn kartaa application back end keliya ah oo Spring Boot keliya ku salaysan oo aanan ku jirin qaybta jhibister maxaa la yiraahdaa angularka aanan ku jirinin, baad isticmaali kartaa adigoo isticmaalaya wax loo yaqaano microservices application. Microservice applicationku waa back end, dhowr application baad samayn kartaa. Dhowrkaas application hal gateway oo front endia oo jhibister angular oo kala camal ah ayaad ku xiri kartaa iyagana. Marka middan waxaa lagu generate gareeyaa microservice gateway-ga waxa weeye waa front endigii oo wuxuu ku generate gareynayaa iyadoo angular ah bay ku generate gareynaya. Marka midka hadda aan u baahanahay si ay noogu fududaato waxaan isticmaalayaa midkan ah monolithic ah. Waxaan leeyahay application back endigii iyo front endigii hal meel ay ku wada jiraan ii samee. Laakiin sida caadiga ah productionka markaa isticmaalaysa waxaa fiican applicationkaaga hadday application weyn tahay in aad horta laba qaybood u kala qaybisid. Qaybta hore ee gateway-ga ah oo APIs-ku ay kusoo xirmayaan front endiga ah, iyo qayb kale oo kasii dambaysa oo iyadu back endigii oo Spring Boot ku qoran oo database-ka inta la xiriirta wax kuu soo celinaysa. Marka
saas baa fiican in aad u samaysid marka aad samaynaysid. Waxaa kaloo haddana sii samayn kartaa xataa microserviceska laftigeeda waxay kuu fududeynaysaa dhowrkii qaybood oo isku shaqo ahba haddii applicationkaaga ay qayb chat ay tahay, qaybtaas chatka hal microservice baa ka samayn kardhaa. Haddii kale ay ku jirto qayb news, qaybta newska microservice kale aad ka samayn kardhaa, oo haddii mid uu dansan yahay midka kale inuu si uu u shaqeeyo adigana ay kugu fududaato in aad manage garaysid. Haddaad wax ka bedelaysid haddaad kan aad demisid kan kale uu sii shaqayn karo. Marka waxaan qaadanaynaa qaybta monolithic aan ku dhufanayaa generate garee baan leeyahay. Wuxuu i weydiinayaa magaceebaad rabtaa inaad u bixisid Lul Solutions. Maadaama hore aan u generate gareeyay aan u test gareeyay, magacii buu xasuustaa meeshan ku qoran Lul Solutions, Lul Chat. Haddaan rabana waa qori karaa, waxaan leeyahay Lul Chat applicationka iigu bixi. Gacantaan ka qori karaa. Sidoo kale wuxuu ku leeyahay packagekii haddaan idii sheegayay weeye, packaged keebaad doonaysaa in aad u bixisid applicationkaaga. Lul Solutions hore aan dhihi karaa, haddaan rabana waad dooran karaa oo enter haddaan ku dhufto taasuu qaadanaya. Lul Solutions, Lul Chat baan leeyahay. Package kasta ee Java ah waxaan doonayaa inaad magacaas u bixisid si kalaasyadaydu ay magacaas u qaataan packageyadooda. Okay, enter baan leeyahay. Dhowr su'aalaha way badan yihiin i weydiinaya, balse mid walba waan ka jawaabi doonaa. Wuxuu hadda i weydiinayaa marka do you want to use JHipster register to configure applicationkaaga? Ma doonaysaa inaad JHipster isticmaashid register iyo inaad samaysid? Ma doonayo, sababta microservicekay ku fiican tahay midaas marka aad samaynaysid. Hadda si noogu fududaata simple baan iska leeyahay. Marka applicationkaaga generate garayn kartid, haddii aad doonaysid applicationkaaga dadku inay log in sameeyaan, dhowr option baad haysataa. In aad isticmaashid JWT ama Java Web Tokens, JSON Web Tokens waxa la yiraahdo, ama waxaa isticmaali kartaa HTTP session authentication ah caadi oo kan Spring security-ga la yimaada, ama waxaa isticmaali kartaa Auth2-ga authentication oo dhintaba waa dhowr qayb oo ka mid ah sida qofku uu applicationka u login gareeyo, security-ga uu isticmaalo. Midka ugu fudud markaan hadda aan tusayo waxaa weeye JWT-gana isticmaal ama JOT waxa loo yaqaano, JSON Web Tokenska authenticationkiisa isticmaalayna. Database-kii baa haddana ku weydiinaya. Ogow applicationkan waxaan generatorkan waxa weeye intaasoo wax oo kala gooniya oo mid walba aad adigu gooni u samayn lahayd asagaa iskugu kaaxiraya. Applicationkii oo diyaarsan buu ku siinaya, waxyaaba yar baad ka bedelaysaa, xataa serverkii buu kugu dhexgelinaya haddaad u baahatid. Maadaama dhowr database baan isticmaali karnaa, Cassandra isticmaali karnaa, MongoDB oo document based database ah ayaan isticmaali karnaa, iyo ama MySQL iyo SQL application aan isticmaalaynaa. Intaasoo database buu support gareeya. Marka SQL-kaan isticmaalaya, midka aan doonaya inaan isticmaalo waxaa weeye MySQL ama MariaDB aan isticmaali karaa. Serverka MySQL server xataa waan isticmaali karaa. Marka MySQL-ka caadiga ah ayaan isticmaalaya. Wuxuu leeyahay marka laba qaab ayuu MySQL-ka u isticmaali kartaa. Qaab haddaad kan dooratid ugu hooseeya, waxaad u baahan tahay in MySQL server computerkaaga aad ku shubtid, ama aad server kale oo aad ku MySQL server uu ku rangareynayo database-ka ee rangareynaysa inaad ku xirtid. Laakiin asaga wuxuu kuu samayn karaa MySQL server yar oo memory-ga ku jira, oo H2 application la yiraahdo, in memory application loo yaqaano. Xataa qaybtan persistent iyadoo memory keliya, oo haddii applicationka aad damisid wixii aad geliso dhan ay dhumayaan, ama haddii aad rabtid inaysan kaa dhuminin ayadoo disk based oo diski lagu save gareynayo wax alaala wixii aad database-ka ku xaraysid ayaan isticmaalna. Marka kan wuxuu ka fudud yahay H2-ga productionka uma fiicna. Markaan productionka isticmaalayna MySQL-ka caadigaan samaynayna, server kale aan ku shubaynaa database-ka, kadibna applicationka ayaan saa ugu xiraynaa. Laakiin maadaama hadda aan doonayo in aan demonstration keliya idi tuso, waxaan isticmaalayaa H2-ga oo ah in memory database MySQL camal ah, oo laakiin oo Java ku salaysan, oo la socota applicationkaaga embedded ah oo ku dhex jirta applicationka aana ka baxsanayn, balse applicationka aba qofka uu maleynaya in systemkaaga uu database MySQL ku xiran yahay. Wuxuu i weydiinayaa marka caching applicationada. Cachingku waa dhowr nooc. Cachingku waxa weeye applicationka in markaad application samaysid oo aad ku xirtid database, mar kasta oo aad query ku samaynaysid database-ka oo aad rabtid inaad tirahdid isii liiska dadka ah database-ka ku jira, ama waxaan ku xaree aad dhahaysid, waxay la mid tahay adigoo waa expensive baa la yirahdaa. Waa waqti badan baa kaa qaadanaya, connections baa la samaynaya, slow bay noqonaya. Marka
MySQL-ka ama systemkan wuu caqli badan yahay, wuxuu samayn karaa, wuxuu leeyahay qofkan haddii 20 qof ii dhiib uu yiri database-ka iga soo saar, oo hadda hal second ka hor aan qof kale uga soo saaray, ma samaynayo database-ka mar walba ma aadayo meel dhexe oo memory-gan ku xaraysanaya, kadib qof kale haddii uu yidhahdo 20kii qof uu kan u baahnaayo kale haddana ana isii meeshii aan database-ka ka aadi lahaa cashkan ayaa waxaan leeyahay iiga soo saar 20kii qof ee hadda ugu dambeeyey ee la qabtay aad qofkii iga horreeyay aad siisay anigana isoo sii adoon database-ka aadinin. Marka waxaa weeye fast ayay kuu noqonaysaa, qofku ma kala ogaanayo in database-ka laga soo saaray in kale, database-kana culays badan ma fuulayo oo fast database si fiican baad ugu isticmaali kartaa. Marka waxaan dooranaynaa dhowr nooc baan dooran karnaa. Waxaa la yidhahda cashkan midka hadda inoo doorana kore, waxaan kaloo dooran karnaa Hazelcast distribution cache weeye, oo haddii aad microservices badan haysatid bay ku fiican tahay oo dhowr computer kala yaala, balse aniga midda aan doonayo waxa weeye middan embeddedka oo hadda halka mid ah cashka ah oo loogu talagalay applicationka monolithic oo halka xaba aan sameynay, oo hal computer iskaga jirta keligeed aan ku shubi doono, in maaragtay uu noo cache gareeyo kaas noogu iigu dar baan leeyahay. Marka applicationka back endiga ah ee Spring Boot-ka ku salaysan, waxaa markaa build garaynaysid, building waxa weeye applicationka marka dependency-ga download garaynaysid, masalan applicationku Spring Boot-ka wuxuu ku salaysan yahay masalan logskii oo kale, wuxuu soo download garaysanayaa dependency badan, applicationo badan ama library-yaal badan oo dad kale ay qoreen, ayaad download garaysan kartaa. Marka Maven-ka iyo Gradle-ku waxay kuu manage garaynayaan in si automatic ah ayaga kuu soo download gareeyaan haddaad u baahatid application-kaaga in la build gareeyo, oo marka la build gareynayo source code-kii ayaa waxaa loo bedelayaa bytecode, bytecode-kaas oo ku salaysan mataqaanaa qaabka Java-ga jar file ama war file, oo isagaa kuu build gareynaya oo kuu diyaarinaya, haddaa rabtina wuu kuu ran garayn karaa oo maaragtay waxaas oo dhan buu kuu samayn karaa. Laban mid baan dooran karnaa marka, Maven-na waan dooran karnaa, Gradle-na waan dooran karnaa, labaduba isku wax bay qabtaan, laakiin anigu waxaan jeclahay ama Lulu Solutions waxaan isticmaalnaa Gradle-ka. Gradle-ka haddaad horey applicationka Android-ka aad u samaysay waad fahmi kartaa oo waad arki kartaa. Marka Gradle-kaan dooranay, Gradle-ku waxa weeye Maven-kii iyo Gradle-ku waa Maven ba xataa kusii dhex jira isaga laftigiisa, Maven buu sii isticmaalaa, wuuna ka syntax fudud yahay, oo wax mataqaanaa Groovy ku salaysan weeye, oo Java ahaan loo qoray mataqaanaa faylashiisa waad arki doontaan. Gradle-ka marka waxaan leeyahay Gradle ii door baan leeyahay. Applicationka marka wuxuu ku leeyahay waxaan kuugu daraa marka waaye which technologies aad doonaysaa inaan kuugu daro. Waxaan rabaa in social login, Facebook login baan rabaa inuu iigu daro applicationkayga. Waxaan doonayaa inuu iigu daro Google login baan doonayaa inuu iigu daro, waxaasoo dhan Twitter login hadduu ku jiro, IJ Hipster dadkeedu horey u sameeyeen meeshii anigu aan ka samayn lahaa loginkaasoo dhan oo anigu aan qori lahaa codekeeda ayaga inta ii qoreen, keliya waxaan u baahanahay inaan inta Facebook tago API codeka ama keyga aan kasoo qaato keliya, file ku jira applicationka keliya dhinac uga daraya. Sidoo kale waxaan u baahanahay Elasticsearch marka aan doonayo. Elasticsearch waxa weeye markaad doonaysid inaad database-kaaga ka raadisid, si qaab fast ayuu kaaga soo raadinayaa, oo fieldiyo badan buu inta isku xiraa. Waxaad dhihi kartaa qofka magaciisu Axmed yahay, date ama surnamekiisu Axmed yahay, waxaasoo dhan intaad dhihi lahayd qof surname intaad dhihi lahayd hal mar baad qoraysaa, isagaa mid qof kuugu raadinaya Elasticsearch-kaas oo si fiican kuugu sameynaya. Labadaas baan ka dooranayaa. Waxaan dooran karnaa marka laba application baan hadda ku generate garayn karnaa default keliya, labadaas oo ah in Angular 4 oo ah latestiga hadda ugu dambeeya applicationka Angular front endiga loo isticmaalo in lagu dhiso, ama Angular 1kii ugu horreeyay ah, keliya kuma samayn karno qaybtan defaultiga ee Jhipster-ka wuxuu kuu ogolaanayaa Angular 4 inaad samaysid, balse haddii masalan tusaale ahaan aad doonaysid Ionic inaad samaysid application ah, ama aad doonaysid application React Native oo kale inaad samaysid, ama React JS-ka caadiga aad rabto inaad samaysid oo kale, front end gooniya ayaad samayn kartaa, oo ku xirmaya back endigii Spring Boot-ka aan horey kan aan samaynayno si gooniya ugu xirmaya isaguna. Marka kuwaas waxaa loo sameeyaa qaab la yidhaahdo modules ama submodules oo Jhipster-kan ka mid a, ayagana waa arki doonaa qaabka modulada loo sameeyo, balse by default hadda Angular 4 keliya iyo Angular JS-kaas keliya ayuu sameynaya. Angular 4-kan dooranaynaa maadaama uu latestiga yahay. Wuxuu leeyahay marka CS processes ma doonaysaa in aan ku sameeyo, asagana yes iigu dar baan leeyahay. Okay, hadda wuxuu haddana i weydiinayaa su'aalaha application-kaaga ma doonaysa inay luqado badan taageerto. Haa baan leeyahay, waan doonayaa.
okay isagaa marka xataa translationkii qaabkii luqadihii waxa internationalizationka la yiraahdo noogu daraya imise luqadood baa doonaysaa buu leeyahay English baan doonayaa baan leeyahay waxaan kaloo doonayaa French igu dar baan leeyahay maadaama xoogaa Faransiis aan ku hadlo En, French igu dar baan leeyahay markaad doonaysid inaad dooratid falaartaa hoos u soconaysaa markaad dulgeysid meesha aad doonaysid ayaa waxaad taabanaysaa batoonka spaceka taabanaysaa wuu kuu dooraya markaas dhibicda yartayo circleka buu kuugu daraya kadibna enter baad taabanaysaa wuu kuu ogolaanaya inaad mataqaanaa samaysid applicationka front endiga qaabo badan baa loo test gareeyaa testiyada mataqaanaa system ama ha ahaado test web testing ha ahaado ama ha ahaado unit testing intaano technology ayaa isticmaali kartaa marka hal ka mid a ayaan dooranaya hadda igu dar baan leeyahay front endiga testingkiisa macal testingkiibu noo develop gareynaya marketplaceka ma doonaysa inaad wax ka download garaysid macnaha generatorre kalaa jira sidaan idiin sheegayay kii front endiga oo kale oo sameynayay oo kale ionica ama kan react native-ka haddaan doonaya inaan download gareeyo halkaan ka sameynaya balse hadda maadaama aan angular keliya aan raba inaan sameeyo waxaan dooranayaa maya hadda wuxuu generate gareynayaa marka applicationkii aan dooninay wuxuu noogu generate gareynayaa sidaan idiin sheegay qaabkii annaga aan u samaysan lahayn wuxuu iskugu darayaa wixii oo dhan downloadingkan buu dhammaynayaa hadda wixii oo dhan markuu isku sameeyo isagoo isticmaalaya qaybta javagana webpack iyo ayuu ku dhisayaa maxaa la yirahdaa java scriptiga qaybta front endiga ah ee angularka ah wax yar baan sugaynaa intuu kasoo baxayo waqti badan ma qaadanaya haddaad internet fiican haysatid wuu dhamay rabaa wax yar baa haray wuxuu isticmaalaa sida aan idiin sheegay dhinaca javaga dhinaca java scriptiga wuxuu isticmaalaa yon ama npm yon iyo npm haddaad qof java developer tahay waxay la mid yihiin maven iyo gradle oo kale weeye oo intii applicationka javaga ahayd gradleka uu kuu sameynayay ayay yon iyo waxay kuu sameynayaan waa dependency ay ku download gareynayaan haddaa rabtidna waa yonka laftigiisa waxaa kusii xiran webpack oo wuxuu automatically wuxuu sida mavenka u build gareeyo applicationkaaga oo uu jar files iyo u bedela hadhow ayuu kana wuxuu ugu bedeli karaa maaragtay application iyadoo webpack la isticmaalayo javascript pure iyo html aad caadi u isticmaali karid marka haddii aan ls dhahno wixii uu generate gareeyo dhan waad arki kartaan applicationadii halkan uu generate gareeyey aad ujeedaan marka aan generate gareeyay waxay halkala midda labaadana doonaya inaan sameeyo maadaama aan rabo in halkan wuxuu soo geliyay sidaad aragtaan modules build yeah so marka waxaan rabaa in aan u sheego marka aan doonayo inaan applicationkan build gareeyo oo aan gradle commandski waxa aan siinayo in uu isticmaalo generatorkii jhipsterka localka ah inuu isticmaalo marka waxaan leeyahay npm link mar labaad baan ku dhex qoraya ogow markii hore generatorka folderka dhexdiisa generatorkan saas ku dhex qornay haddana waxaan ku dhex qorayaa generator jhipster aan leeyahay haddana applicationkii aan sameynay ayaan ku dhex qorayaa okay wuu iga yeelay marka applicationka hadda aan sameynay waa application diyaar ah oo java ah waxaan sameynayaa eclipse aan rabaa inaan ku furo marka war xagee ka baxday eclipse okay laba eclipse baa igu jirta midka latestigaan isticmaalaya 4.6 waa kan murabiya kanaan isticmaalayaa oo ah neon 3 eclipse ah workspace gooniya u samaystay oo mataqaanaa jhipster workspace la yiraahdo iyadaan ku dhex furaya marka okay welcome buu yiri waa iska bixinaya welcomekiisa waxaan doonayaa marka inaan import gareeyo jhipsterka laftigiisa haddii aad rabtid tutorialkiisa qaabka eclipsega applicationkeeda loogu configure gareeyo jhipsterka laftigiisa wuxuu leeyahay pagekiisa ugu horeeya generatorka haddaad tagtid oo aad tagtid qaybta
developmentiga in qayb IDE buu leeyahan u maleynayaa ama haddaaba google garaynaba waad helaysaa si fudud jhipster eclipse haddaa ku qortid github maven waa kana marka wuxuu ku siinayaa qaabka, wuxuu ku tusayaa qaabka aad u import garaynaysid applicationka oo waa applicationkii Spring Boot-ka ahayd ee back endiga ahayd iyo qaybtii front endiga ahayd oo weliba isku jirta ayuu ku tusayaa qaabka aad u import garaynaysid Maven isticmaal buu kala asagoo tusaalahan Maven buu isticmaalayaa inuu ku import gareeyo, laakiin aniga Maven ma isticmaali doono, Gradle baan isticmaali doonaa oo waa tusi doonaa, balse Maven waa isticmaali kadhaa iyo weliba qaabka mataqaanaa applicationka haddaad doonaysid inaad exclude ku samaysid modulada node-ka ah ee JavaScript-ga ah, maadaama Eclipse-ga wuxuu kuusoo saaraya error kuusoo saaraya, waa in marka folderada static ah ee markii la generate gareeyo qaabka uu u sameeyo maaragtay uu samaysan yahay Spring Boot applicationka ee back endiga waxa weeye waa application caadi wuxuu leeyahay folder la yiraahdo public ama static la yiraahdo markii webpack uu generate gareeyo applicationka Angular-ka ah ee uu u bedelo JavaScript oo Angular-ku wax kale ma ahan iyo TypeScript-ga iyo aakhirka code-ka lagu qoro Angular-ka iyo TypeScript-ga waxaa loo bedeli doonaa JavaScript pure ah oo browser-ka uu fahmo, waayo browser-ka caadiga ah ee lagu rangareynayo applicationkan Angular-ka ah iyo TypeScript-ga lagu qoray ma fahmayo browser-ku. Browser-ku wuxuu fahmaa saddex waxyaabood keliyuu fahmaa oo ah HTML, JavaScript iyo CSS. Kadib webpack wuxuu kuu ogolaanayaa in uu Angular-ka applicationkii ku qornay TypeScript-gii uu u bedelo native mataqaanaa JavaScript iyo HTML iyo Java iyo CSS, kadibna folder la yiraahdo static oo Spring Boot-ka ka mid ah applicationkiiska Spring Boot application ka mid ah ayuu wixii oo dhan ku xareynaya halkaasa marka laga host garay imageski iyo waxaas oo dhan iyo gidi halkaasuu mataqaanaa Tomcat-ku ama Spring Boot ka save gareynaya faylashaas sida website ahaan, adoo website caadiya geliyey bay la mid tahay, isagu ma kala yaqaano. Marka waa inaad u sheegtaa faylasha statiga ah ee ku salaysan JavaScript, CSS-ka iyo bahalkii ama ku qoran sida hadii kale errorkaas oo kale kusoo baxaya qaybta web app-ka ku qoran, waa inaad u sheegtaa in uusan maaragtay uu ignore gareeyo, hadii kale error ma run gareysmayo programkaagu. qaabka aad ugu sheegaysan halkaanaad ka arki kartaa oo haddaad akhrisid qaybtan propertieska, filterska, waxaas oo dhan sidaas oo dhan baad ku qoraysa, exclude all baa leedahay markaad ku rangareynaysid Eclipse-ga. Marka anagu hadda Eclipse-ga wuu noo furan yahay, waxaan leenahay import baan leenahay, no import garee applicationka. Marka haddaan Maven rabtid inaad ku samaysid Maven ahaan baad u samayn kadhaa, halkan baad ka leedahay Maven ahaan ama existing Maven project baa leedahay, laakiin aniga maadaama aan Gradle rabno Eclipse-gayga waxaan gelinay plug-in Gradle dhahan ku shubay ayadaa kuu samaynaysa markaas plug-inka. Hadda waxaan u maleynayaa by default Gradle wuu ku yimaadaa Eclipse-ga oo xataa uma baahnida u maleynaya inaad ku shubtid, ma xasuusan kara markii ugu dambeysay aan geliyey. Kadib next baan ka leeyahay, kadib waxaan aadayaa marka applicationkan aan sameynay ee hadda aan generate gareynay meesha ay ku jirto ayaan tegayaa. Lul training ay ku jirtay, back endigaan tegaynaa, Lul chat-ka waa kana marka open baan leeyahay for applicationkaas finish. wuxuu wadaa hadda shaqo halkan ka wadaa refreshingkii uu dhameeyey workspace-ku build gareynaya. Markuu dhameeyo applicationku way noo soo baxaysaa, geeskaasay kasoo baxday sida aragtaan. G waa Gradle, calaamada G-da greenka ah dul saaran waxa weye projectigan waa Gradle, J-na waa Java, project Java ah oo Gradle ah. Ogow inkastoo xataa ku dhex jira meeshan oo ku dhex jira bahalkii source-kii halkaas sida aragtaan exclude-ka inaad dhahdid weeye, laakiin aan hadda waqti badan aan ku dhaho ma hayo, balse instructions-kii waa haysataan. Marka waxaan sameynayaa ujeedka ugu weyn horta waxa weeye Eclipse-ga aniga kama rangareeyo qaabka markaan application-kan build gareynayo
oo aan rangareynayo dhinaca command line-kan ka rangareeya, laakiin editingka ayaa halkan u isticmaalnaa markaan edit gareynayno. Applicationkii lulchatka ahaa sidaad aragtaan waa kana, qeybtii sourcekii ahaa waa laba application oo isku dhex jirta halkan. Waxa weeye waa front endigii iyo back endigii. Front endigii waxa weeye qeybtan codekiisii waa kana halkan ku jirta, meeshaas javaga la yirahdo hoos imaanaysaa. Applicationkii aan sameynay, packagekii aan sameynay com.lulsolutions.lulchat kaad aragtaan waa kana. Meeshii aan wax ka bedelay hadaayeeto oo markii aan ku jiray jhibisterka oo aan isticmaalaynay bahalkan studiogan, meeshii aan bedelay qoraalkan aan geliyey ayaan rabaa in markii la generate gareeyey qoraalkii aniga aan ku darsaday ee ahaa show lulsolutions maaragtay changeskii API-gii in uu kusoo darayo. Marka Eclipse-gan ku noqonayaa, classka marka meeshuu ku jira waan garanayaa, wuxuu ku jiraa web baan galnay oo javaga hoos taalay, kadibna restigan kasii galnay, kadibna classka aan bedelnay wuxuu ahaa user resources. Ogow marka templateska ay yihiin oo classyadan magacyadooda underscore baa ka horeysay, haddaad dib ugu noqono oo aan fiirino magacii classka userkan hadda aad aragtaan halkan ku aragtaan, user resourceskaas halkaas aad ku aragtaan underscore baa ka horeysa. Taas waxaa weeye wuxuu ka mid yahay generatorka jhibisterka ah, templateskiisa ayuu ku jiraa. Mana ahan java pure ma ahan, waxaa la socda waxyaabo kale oo fara badan oo maaragtay ku ogolaanaya in ujeedka dhan ee jhibisterkan ay aragtaan, codekan dhan aad aragtaan, waxaan oo dhan waxaa weeye in la helo oo la generate gareeyo applicationkan. Waa haddii hadda qof inta u yimaado anigoon jhibister aqoonin ama aanan aqoonin isheeg maxaa la yirahdaa yowmanka aanan aqoonin, sidii aan u generate gareyn lahaa Spring Boot application oo aan ugu dari lahaa waxyaabo fara badan oo halkan aad ku arki doontaan. Sidaan weeye codeka haddaa fiirsan, code aad u fara badan weeye xaqiiqdii. Waxaasoo dhan si automatic ayuu noogu generate gareeyay anagoon intaa commandka keliya aana sameynin. Waana code haddii ilaa iyo saan idii sheegay 3 bilood dadka ku qaadan lahaa inay qoraan, ayuu wuxuu noogu qoray daqiiqado ayuu noogu sameeyey, sakama waxaan dhammayn. Iska xirayaa marka haddii aan furo marka user resourceskii, hopefully API-gii aan sameynay ee ahaa sida aragtaan classka API-giisa waa kana, marka mataqaana magaciisa waana classka method walbana waxay leedahay API name qeyb hoos imaanaysa. Sida aragtaan waa kana methodkii aan ku daray, aan doonayay markii aan waco API-gaas show lulsolutions aan waco in uu iisoo noqdo si automatic ayuu iigu soo daray. Marka sida aan u extend gareyn karno codekan, sidaan idii sheegan hadhow maaragtay ma fiicna horta inaad wax ka bedeshid, waayo hadhow markaad update gareynaysid waxaa fiican mar walbaba inaad jhibisterka inta soo download gareysatid aad samaysatid module kale ee ka hooseeya oo wixii aad doonaysid isagu si automatic u bedela. Si mar kasta oo ay wax ku daraan qolada jhibister ay wax ku daraan generatorkan ay wax ku daraan, aad wax cusub kusoo daraan, aad u download gareysan kartid adigo haddii aad wax ka bedeshid oo sidan aan uga bedelno wixii hore oo aad bedeshay overwriting ku sameynaya oo way kaa tirtirmayaan. Marka ma fiicna, waxaa fiican wixii lagu daray in adiga generator gooni ku ah oo markii la generate gareeyo jhibisterkan inta taga si automatic uga bedela meesha hadda gacanta aan anagu la galnay oo aan u bedelayno. Marka haddii programkayga aan rabo inaan mid kale kusii daro oo aan rabo inaan ku dara mid kale oo gooniya anigoon generatorka laftigiisa teginin oo halkan jooga, yaa halkan inta kobiyeystaan waxaan dhihi karaa waxaad u bixisaa API kale ii samee magaciisa la yiraahdo name, yeah, what's my name baa u bixinaya. Okay, what's my name wuxuu iigu bedelayaa Axmed iigu soo celi wey, Axmed Kaafi ii soo celi baan leeyahay. maadaama methodkan magaceeda ay horey u jirtay, halkan error buu soo saaraya, waa inaan ka bedelnaa oo aan method kale u bixinaa la yirahdo what's my name. camel case inaad java camel case inaad u samaysid way conventionku kaama diidayo, wuu shaqeynaya, laakiin sida caadiga ah camel caseku waxaa weeye in xarafka yar aad xarafka ugu horeeya, ereyga ugu horeeya ee wadka xaraf yar ku bilowdid, kadibna ida capital ka dhigtid is, kadibna myda si mataqaanaa si fudud akhrintiisa ay u fududaato.
kana waan sameynay. haddaba marka waxaan u baahanahay in aan rangareeyo projectigan aan sameeyey. Sidaan idiin sheegay halkan waan ka rangareyn karaa haddaan rabo, laakiin Eclipse kama rangareynayo. Waxaan sameynayaa inaan halkan ka rangareeyo. Marka aad rangareynaysid projectigaaga markuu dhamaado command buu halkaa kuugu sheegaya. Commandkaas wuxuu ku leeyahay applicationkaaga qaybta back endiga haddaad rabto inaad rangaraysid Gradle W sidaas u isticmaal haddaad Gradle isticmaalaysid. Wuu og yahay inaan Gradle dooranay, so that's why noo dhahayaa Gradle W, nama uusan dhihin Maven W ama MVN W. W daas waxay u taalaa waa Wrapper, waxaa weeye uma baahnid projectigaaga inuu Gradle ku install garaysnaado. Tusaale ahaan haddii aniga hadda computerkayga Gradle baa ku jira, Gradle W kuma daraya sidaa ujeedaan. haddaan ku tuso wuxuu ku itusayaa actually wuu build gareeyay. waan joojinayaa sababta ama ahayn inaan meesha dhexdeeda Gradle ku dhex sameeyo. haddaan dhaho Gradle version, wuxuu ii sheegayaa versionka ku jira applicationkan ee Gradle-ka ah, balse ma doonayo maadaama JHipster laftigiisa uu wato Wrapper. Wrapperka waxaa weeye Gradle-kana waxaad si global ayaa computerkaaga ugu shubi kadhaa. haddaad doontidna projectigaaga keliya ayaa waxaa JHipsterku uu Gradle-kii aad u baahnayd oo dhan la socdaa. wuxuu isticmaalaya wax la yirahda Gradle Wrapperkaas. macnaheedu waxa weeye uma baahnid in computerkaaga si global ah ugu jiro Gradle-ku ugu jiro, uma baahnid. marka W-ga midka la socoto, haddii xataa computerka uusan Gradle ku jirin ama Maven ku jirin, midka W-da la socoto wuu kuu shaqeynayaa haddaad midka W-da la socoto dhammaadkiisa aad ku dartid. marka waxaan isticmaalayaa Gradle baan leeyahay. maadaama Linux ay tahay calaamadda sida caadiga anagu baan ugu darayaa oo ah dot iyo /ka. kadibna Gradle W-gaasaan leeyahay. waxaa weeye macnaha applicationkii waan sameeyey ayadoo source code ay diyaarsan tahay. Gradle waxaan rabaa in aad build garaysid oo aad samaysid jar file ama war fileka. War fileka waxaa weeye waa codekii aan sameynay ee source codeka ahaa ee hadda aan idin tusayey ee Eclipse aan idinku tusayey. kan keligiis ma shaqeynayo. codekan marka la rabo in la rangareeyo oo la rabo in server lagu shubo si toosa uguma shumayo. waa inaad build garaysaa, waa inaad u bedeshaa bytecode ama binary code wax la yiraahdo. bytecodekaas wuxuu ku jiraa faylal waaweyn oo mataqaanaa isku xiran oo wixii oo dhan la isku geeyey, isagoo isku daraya qaybtii Spring Boot-ka ahayd ee back endiga ahayd iyo qaybtii front endiga intuu iskugu kaa daro ayuu wuxuu kuu sameynayaa file buu sameynayaa, buu kugu xareynayaa. filekaas server tomcat la yiraahdo oo Spring Boot-ka ku dhex jira ama Jetty baad isticmaali kartaa midkaad doontid, ayuu haddana kugu dhex ridayaa. kadib buu haddana kuu rangareynayaa oo computerkaaga local ahaan noogu rangareynaya. hadduu server yahayna ay qaab production ah u generate gareyn kartid ayaa jira. oo waxaad leedahay application mataqaanaa product generate gare. masalan waxaad ku daraysaa P capital and then waxaad leedahay prod baad leedahay and then saasuu kugu generate gare. lakin hadda anaga maadaama local aan ku rangareynayno uma baahnin in aan server ku shubno oo fileki intuuna siiyo aan filekaas qaadno oo aan serverka ku ridno. isagaa inta filekii noo generate gareeya, serverkii noo kiciya, ku dhex ridaya, kadib anagu markaas browserkan tagaynaa si toosaan ugala soconaynaa. marka ii build garee baan leeyahay applicationka. enter baan taabtay. marka Gradle W wuu yaqaanaa xataa maadaama kuwan Yeomankan sameeyeen ama JHipsterku waxay sameeyeen yonkii kii front endigana wuu kuu dhisayaa oo webpack isticmaalaya, qaybtii back endigana wuu dhisayaa oo Gradle iyo Maven buu isticmaalaya. faylashii kuu diyaar ah ayuu markaas server inta kiciya noogu xareynaya. xogaa bay qaadanaysaa in uu rangareeyo haddii connectionka, maadaama wuxuu download gareynayaa xataa markan Maven dependencygii faylashii wixii oo dhan buu download gareynayaa. marka hadda wuxuu kicinayaa JHipsterkii buu kicinayaa buu serverka ku kicinayaa. hadda waa kana marka waa diyaar buu leeyahay. waxaan koobiyeysanaya marka fileka uu yiri waa diyaar ayaan qaadanaya. maxaa la yirahdaa URL-kaas serverkii buu kiciyey, filekii uu build gareeyuu ku riday. kadib maaragtay halkan baan kala socon karnaa. copy baan ii leeyahay, browserkaan tagayaa. halkana intaan ku shubto dhag waxaan leeyahay markaas itus waxaad kicisay ama applicationka aad generate garaysay. sida aragtaan JHipster baa isoo baxay. calaamadaas gaduudan ee development meesha ay ku taalo
Mavenku wuxuu leeyahay dhowr profile buu leeyahay. Profile la yiraahdo development iyo profile la yiraahdo production. Profilku waxa weeye marka aad rabtid in aad serverkaaga projectiga aad samaysid oo aad ku samaynaysid computer local ah, waxaad u baahan tahay wax la yirahdo development tools badan baa jira. Qaabkaas marka wuxuu u shaqaynayaa waxyaabo badan oo aadan u baahnaan lahayn, sida maaragtay aad u baahnaan lahayd productionka aad ugu baahnaan lahayd ayuu ka saarayaa, oo waxyaabo badan oo dheeraadana uu kugu darayaa si developmentiga uu kugu fududaado, sida debugging oo kale camal, oo applicationka aad rabtid meesha aad rabtid inaad joojisatid login extra ku darsan kadhaa. Marka profileka wax kale ma ahan, labada qayb oo profileka midna productionka yahay, midna uu yahay bahalkii qaybo dheeraad oo security ku daraya markuu productionka yahay. waan tusi doon waa arki doonaa profileska qaababkay u kala shaqeeyaan. Marka applicationkii wuu noo generate gareeyey jhibisterka ahaa. waxaan haddaan rabno translationkan waxaan o dhan waan bedeli karnaa. sidaan idiin sheegana laba qaab baan u bedeli karnaa. Applicationkan aan generate gareynay yowmanka uu generate gareeyey jhibisterku generate gareeyey ayaan ka bedeli karnaa translationkiisa. Sida aragtaan halkan waa qaybtii applicationka javaga ahayd ee back endiga ahayd. Qaybtan kale ee iyadana halkan web appka ay ku taalo waa dadka front endiga meesha ay geliyaan applicationka wixii ku jireen oo dhan, wixii u baahnayeen oo dhan. Sida aragtaan qaybtaas appka oo kale haddaad fiirisid waxa weeye waa Angular JS-ki, TS-ka waa TypeScript-gii faylashii dhammaa weeye, TypeScript-ga ahaa. TypeScript-ga laftigiisa mataqaanaa modulo badan ku dhex maxaa yirahdaa front endiga ayaa waxaa ku dhex jira modulo badan oo ah kii account management-gii, sida passwordkii iyo waxaas oo dhan pageskiisa ku tusayay ee HTML-ka ahaa iyo JavaScript-ga laga generate gareynayay. Qaybtii admin-ka waatana iyaduna waa module kale, mataqaanaa waa subsection kale oo ku hoos jira Angular-ka front endigiisa. Entitieskii homekii marka ugu horeysa bogga hadda aad arkaysid aad aragteen ee jhibister ku qoran tahay, waa kana dhahaya welcome to jhibisterna dhahaya soo ma jeed isagoo HTML ah. Dhammaantiis authentication buu u baahan yahay. Sida aragtaanna waxaa la socda ng switch iyo syntaxkii ahaa Angular-kii baa la socda. Marka dadka front endiga waxay ka shaqeynayaan marka ay wax ku darayaan applicationkan, ay wax doonayaan inay ku kordhiyaan, waxay ka shaqeynayaan qaybtan hoos imaanaysa web appka hoos imaanaysa, qaybtaas bay hoos ka shaqeynayaan. Si qaybtan dockerka iyadana waxaa loo isticmaalaa marka aad serverkaaga aad doonaysid inaad deployment ku samaysid applicationkaaga, oo aad meeshii hal server keliya aad ka haysan lahayd, oo wax oo dhan ba hal server aad ku shubi lahayd, in halkaas server ee weyn aad boqolaal server oo yaryar aad u kala qaybisid oo kala qayb ah, oo mid walbana hadduu rabo operating system gooniya inta aad ku shubtid aad leedahay, mid Windows ku shubo, mid Linux ku shubo, mid waxa rabtid ku shubo. Halkaagii server buu ku ogolaanayaa in aad intaas oo wax inta u kala qaybisid, uu programkaaga u arko hal server oo boqol qaybood ka kooban, mid walbaba server gooniya. Waxay la mid tahay adoo 100 server haysta camal, hal server keliyana haysataa. Marka dockerkaas saasuu noogu fududeynaya. Iyadana waan arki doonaa qaabka loogu generate gareynayo. Dib ugu noqda marka applicationkii qaybtii web applicationka ahayd ee applicationka la generate gareeyey. Haddii marka waa front endigii meeshan waxaan sida aragtaan boggan wuxuu ku samaysan yahay Angular baa lagu sameeyey, wuxuuna ka kooban yahay JavaScript iyo CSS iyo HTML. Haddii marka login aan dhahno sign in, sida aragtaan halkan soo ma jeedid sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with, markii aan dooranaynay social ma doonaysaa in lagugu daro social login-ka oo applicationka aan generate gareynaynay, qaybtan haddii aanan ku dari lahayn, haddii aanan dooran lahayn qaybtan laguma soo dareen. Hadda waxaan ku geli karnaa Facebook haddii aan configure gareyno faylasha meel gudaha laga configure gareeyaa jirta. Iyadana waa idin tusi doonaa fiidiyoyaasha dambe idin tusi doonaa, balse username-ka iyo password-ka aad ku geli karaysa waxa weeye admin iyo admin weeye default-ga. Sign in baan leenahayna geli. Hadda wuuna geliyey gudaha. Qaybtan languageska haddaa fiiriso waa laba luqadood baan dooranay, luqad Ingiriisi iyo luqad Faransiisaan dooranay. Labadaba waa kuwana. Qaybtan kale ee accountiga iyadana waa wixii mataqaanaa settingskii accountka iyo waxaas oo dhan ku sameynaysay. Entitieska halkan entities badan weli ma aanan sameynay. Entitiesku waxay soo gelayaan marka applicationkan waa generic, waxaa loogu talagalay in qaybtii basic ahayd ay ku dhisto. Haddii applicationka aad doonaysid in shaqo gooni ay ku qabato, مثلا haddii chat application ay tahay oo kale camal, waxaad u baahan tahay entities badan sida profile-kii, sida mataqaanaa like-kii, sida vote-kii iyo mataqaanaa content-gii qofka
settingkiiskii waxaas oo dhan akhbaarihiisa oo dhan oo goonida oo baad uga baahan tahay. Marka waa idin tusi doonaa sida applicationkaaga hadda si generic weeye, si aad application gooni shaqada loogu talagalay aad qabanaysid aad loo gelisid. Halkan baan ka gelinaynaa, entities-kan ka gelin doonaa. Balse hadda qaybta aan raba inaan idin tuso waxaa weeye qaybtan maxaa la yidhahdaa user managementiga iyo metricska, qaybtan administrationka. Haddaa fiirisid applicationka already waxay noo samaysay userra badan bay leedahay. Userka dadka loginka masalan admin baan ku galnay, adminkan mataqaanaa userada ku jira waa kana, masalan kii adminka waa kana. Waxaa kaloo kale jira user caadiya oo user aad ku geli kartid oo aan qaybta adminka ku jirinin. Masalan haddaan ka baxno kale halkan aan log in dhaho, user meesha adminka aan ka dhahayo user aan u malaynaya passwordka inuu ahaa si caadiyu noo geliyey. Sida aragtaan hadda ma lahan qaybtii administrationkii iyo waxaasoo dhan iyo account settingkii badnaa ee halkan aad ku arkayseen ma lahan ee qaybtii administrationka. Adminku qaybta sectionka administrationka ma qofkan waa userka caadiga ah ee aan privilege weyn ama aad u fara badan aan lahayn systemka meeshuu ka isticmaali lahaa weye. Marka waan ka baxayaa kan adminkan rabay inaan idin tuso. Waxaan ku noqonayaa adminkan ku noqonayaa adminka igee baan leeyahay midka ah. Hadda adminkii baan ku jiraa, administrationka qaybteedii baan aragnaa oo userskas halkaas aad ka arkaysaa. Userrada halkaan aad uga dari kartaa, new user aad dhihi kartaa haddaan doono, oo dhowr role bay leeyihiin. Role admin ah oo qofku uu qaybo badan administrator uu yahay u arki karo, iyo qofku qaybo uusan arki karinin buu ku salaysan yahay. Haddaa rabtana waa tirtiri kadhaa, haddaa rabtana username iyo passwordkaad ka bedelaysaa. Marka waxaan doonaya inaan iskula tuso metricska sida aad aragtaan halkan. Serverkaaga markuu kacsan yahay waxyaabo wuxuu isticmaalaa wax resources fara badan la yirahdo, memory buu isticmaalaa, waxaasoo dhan buu isticmaalaa. Meesha uu ku rangaraysmayo applicationkaagu waxay kuu sheegaysaa dhammaan statuska oo serverkaagu inta thread ee mataqaanaa rangaraysmaysa, inta memorygiisu uu yahay iyo waxaasoo dhan bay kuu sheegaysaa. Marka waa wax bahalkii gooni Spring Bootka ayaa qaybahan kale xataa mataqaanaa service statistics la yiraahdo inta request ee soo yimid iyo wax la mid ah waxaasoo dhan kana ka arki kartaa, iyo cashkii iyo wixii la mid ah. Waa muhiim mataqaanaa marka serverka uu kacsan yahay inaad ogaatid metricska serverkaaga iyo healthigiisa. Qaybta aan aadka u doonayo auditka waa meesha wixii qofka uu sameeyo, wixii dhacay oo dhan mataqaanaa qofku hadduu intaasoo login ay dhacdo, haddii qof la reject gareeyo oo security ahaan waad kala socon kartaa. Yaa isku dayay applicationka inuu soo galo, yaa mataqaanaa la diiday, yaa isku dayay inuu hack gareeyo, waxaasoo dhan halkaan ka egan kartaa. Weliba haddii doonaysid in dadku ay events mataqaanaa sameeyaan, masalan qofku system weyn oo wadan masalan haddaa u sameynay sidoo kale haddaa ogaatid yaa qofkan profilekiisa fiiriyey, yaa mataqaanaa waxaasoo dhan kasaad ka ogaan kartaa wixii dhacay. Qaybtan waa qaybtii logska oo serverka mataqaanaa logskiisa uu generate gareynayo midka aad doonaysid si info ah, si debug aad ku ogaanaysid. Midka ugu muhiimsan aan doonaya marka inaan tuso waxaa weeye APIs. APIs-kan waxaa lagu generate gareeyey Swagger waxa yirahdo. APIs-ku wax kale ma lahan. Systemkaagu marka uu aad back endigiisa qortid ama front endigiisa aad rabtid back endiga qortid systemkaaga shaqo uu qabanayo, shaqada uu qabanayo systemkaagu waxaa lagu soo bandhigaa wax APIs la yiraahdo. Systemkaagu muxuu samayn karaa? Wuxuu samayn karaa register user, qof buu diiwaan gelin karaa. API register inuu yeesho weeye. Wuxuu kaloo yeelan karaa maxaa la yirahdaa delete user baa dhihi kartaa. Qofku hadduu diray waa in API-gaas oo masalan tusaale ahaan qaybtii userkii classkii user resourceska aan sameynaynay dadka userka managementiga loogu talagalay. Marka applicationka Angularka ah ay serverka la xiriirayso oo ay log in samaysa, masalan waa in serverka loo sheegaa front endiga dhinaca Angular JS-ka ah ee browserka qof baa wuxuu geliyay username iyo password. Qofkaas markuu geliyo submit markuu ku dhufto waxaa la wacayaa API back endiga ee log in la yiraahdo ayaa la wacayaa oo userada ah. Tusaale ahaan halkan oo kale midkan masalan registerka sa aragtaan oo kale midkan wuxuu leeyahay qofkan register waxaasoo dhan buu leeyahay. haddaan hoos aada qaybtii user managementiga ahayd ee liiska userada ah itus haddaa rabtid oo kale camal, haddaa rabtid get all users oo kale haddaa rabtid inaad dhahdid halkan buu soo gelaya. Waxaan rabaa marka inaan idin tuso qaybtan userka ah waxaan ku darnay API baan ku darnay, laba API baan ku darnay. Labada API waxay kala ahaayeen
waxay kala ahaayeen what's my name oo midkan ah sida aragtaan what's my name midkan ah iyo midkan ah lul show lul solutions swaggerkan waxa weeye marka waa qaab haddaad isticmaashay java doc haddaa isticmaashay markaad javagaaga qortid programkaaga aa qortid comments yaryar baad ku daraysaa kor kaga daraysaa oo calaamad iyo forward star haddaad xasuusto java doc haddaan idin tuso java doc example yaraan idin siinayaa oo commentiska ah halkan hopefully meelahan noga tusi doonaa horey uma fiirinin meeshan halkana ka raadinayaa sugbal in starkiiba ay ku qoran tahay waa kana calaamadaha soo ma jedid ayaad ka hormarinaysaa calaamadaas ayaad ka hormarinaysaa kadib qoraal baa dhexda gelinaysaa kadib java doc tool oo java ee javaga la socda ee java doc la yiraahdo oo generator aad la midaynaysaa wuxuu ku siinayaa page dhan oo programkaaga sharaxaya oo aan codekii soo qaadanaynin badankiis balse soo qaadanaya qoraalkii aad gelisay calaamadan dhexdeeda soo qaadanaya kadibna website yar dhisaya oo ku tusaya sida applicationkaaga u sharaxan yahay tanna waa tii oo kale camal laakiin APIs-ka loogu talagalay APIs-ka ayuu yaqaanaa API kasta full adresskiisa wuxuu yaqaanaa magaciisu yaqaanaa shaqada uu qabto mathalyada nooca ay yihiin ma get ba halkan hadda aragtaan waa get oo ma jeedid get weeye midan waa post weeye midka kuwa kaloo puta jirta oo http-ga soo ma jeedid mathalyada waa actionmada http-ga ah ee la siiyo back endiga restful web service-ka ah weeye marka soo ma aragta halkaas marka mid walbana wuu kuu sheegayaa nooca uu yahay marka tusaale ahaan haddii aan qaadano midkii show lul solutions haddaa ku dhufto API-gii sharaxaadiisu ii sheegaya wuxuu leeyahay string buu soo celiyaa mataqaana responsigiisu waa string buu soo celiyaa haddii uu qofku khaldo http status error codekan 401 buu kuu soo celinaya oo unauthorized ka ah haddii meel page aan loogu talagelin uusan masalan asagoo admin aan ahayn page admin dalbadoo kale camal forbidden waxaan loo ogolayn buu galay haddii page aan jirin hadduu dalbadoo kale errorkan baa soo noqonaya 404 oo not found macnaheeda uu yahay haddii aan rabo marka try baan dhihi karaa in serverkayga maadaama uu rangaraysan yahay try baan leeyahay waxaad itus baad wacdaa wac oo itus haddaan rabo inta koobiyeysto intaan koobiyeeyo ayaan waxaan ku gelin karaa url-kii weeye meesha laga raadinayay balse maadaama url-kan uu authentication u baahan yahay oo aan dooranay JWT aan dooranay oo token uu u baahan yahay masalan authenticationkan waa in aad ku dartaa token inaad samaysid tokenkan oo kale hadda wuxuu ka kooban yahay usernamekii adminka ahaa ayaa inta la generate gareeyey baa waxaa laga dhigay file dheer string dheer baa laga dhigay si security ahaan aan loo arkin marka internetka serverkaaga aa wacaysid oo codsigaaga uu sii maraya internetka haddii qofka uu xado oo kale camal uusan u ogaanin usernameka iyo passwordka aa ku gasho oo kale camal oo headerka http-ga ayaa lagu darayaa waxaa isticmaalina marka halkan kel command isticmaali karnaa marka wuxuu ku leeyahay responsiga haddii backendigu ka wacay backgroundku ka wacay kadibna markuu API-gii wacay intaanu u soo celiyey haddii aan rabo masalan command line-ko kale camal aniga inaan gacanteeda ku rangareeyo kelkan waxay la mid tahay waa amar ah ii rangaree commandkan kel command waxaa weeye linux ah oo ku tusaya http restful APIs iyo wixii la mid ah website-yadoo kale camal aad ku rangarayn kartid aad urlska aad ku rangarayn kartid uu ku leeyahay kel samee baad leedahay waxaad tirahdaa x waxaa weeye methodka http-gan isticmaalayo waa get oo API-gan isticmaalayo headerka oo requestiga bodiga iyo request buu leeyahay markaad codsi diraysid oo aad browserka ka diraysid oo aad serverka u diraysid waa baqshadoo kale baqshada dusheeda kore waxaa ku qoran headerka wixii metadata la yiraahdo ee sharaxaya waxa bodiga ku dhex jira ama responsiga lasoo celinaya sharaxaya masalan baqshada qeybteeda headerka kore waxaa ku qoran header weeye baan leenahay commandkan soo socda ee midkan ah waa header baan leenahay macnaheed headerkaasna macnaheed waxa weeye waa textiga aan doonayna inaad soo celisid waa plain text ma JSON ha ii soo celinin XML ha soo celinin string caadiya ii soo celi weeye mataqaana oo accept garee headerka haddana waxaa ku dartaa authenticationka oo ah securityga securitygaas wuxuu weeye ereygan waxaan isticmaalaynaa tokenkan isticmaal baan leenahay bearerkaas isticmaal baan leenahay haddii marka aan koobiyeeyo kelkan aan koobiyeeyo oo aan inta tago aan furto command line terminal baan furanayaa new command baan leeyahay
kan ii fur. Haddaan halkan inta koobiyeysto aan ku qoro marka hore waa in computerkaaga aniga hadda waxaan isticmaalayaa computer Mac aan isticmaalayaa. Mac waa Linux oo wax lagu sii duldaray weye. Marka server kasta computer kasta oo Linux keelka wuu la yimaadaa. Keel haddaan ku dhufatid wuxuu ku leeyahay manualkeeda isticmaal. Haddii kale wuxuu ku dhihi lahaa waa maxay keel buu ku dhihi lahaa. Marka haddii Windows oo kale isticmaalaysid waa inaad ku install garaysaa keelkaas. Qaab waxaa jiro aad Windows developerskana waxaan ku dhahnaa Linux isticmaala haddii aadan heli karin Mac Linux ama Ubuntu iyo wixii la mid ah. Marka wixii aan soo koobiyeystay ayaan inta ku paste gareynayaa maadaama serverkayga uu rangaraysmayo oo URL-kan local hostiga 8.88 uu dhageysanayo API-ga la yiraahdo show lul changes mataqaanaa iwac baan leeyahay wixii markaas jawaabaha ii soo celiyo. Okay, wac baan leeyahay jawaabtii wuu soo celiyey sida aragtaan sida halkan ku aragtaan soo ma jeedaan wuxuu soo celiyey changes for lul solutions added waa lagu daray waa beautiful buu ku leeyahay intaas halkaas haddaa fiirisid API-ga aan inta ka fiirino oo aan tagna classkii user resource-ka ahaa waxaanu soo celiyey soo ma jeedid sida hadda caadiga string caadiga soo celinay laakiin haddaad hoos aadno API-yada qaarkood hore string hore kama soo celinayaan balse waxay sameynayaan shaqay qabanayaan. Masalan haddaad tidhaahdid list user ay tus horey kaama tusayo mataqaanaa inta kama soo celinayo balse wuxuu sameynayaa database ayuu la xiriirayaa sida hadda halkaad aragtaan oo kale camal maartay database ku tagayaa wuxuu leeyahay waxaad ii soo celisaa give me a list create user oo kale camal hadda halkaan hadduu rabo wuu sameynayaa tan oo kale list macnaha string hore kaagama soo celinaya laakiin databaseku back endiga qayb waxaa jirta services la yiraahdo back endiga ka mid ah oo qaybtan ah qaybtaasna waxay sii aadaa databaseka tan oo kale user service oo kale camal kuwan buu wacaya kuwaasoo repositoryga userka ku xiran repositoryga databaseka ku xiran tahay databaseka liiskii dadka lagala soo baxaya serviceka loo soo celinaya servicekana wuxuu usoo celinaya user resource-kan usoo celinaya oo user resource-kana ka bacdi browserkii ama qofkii soo wacday API-ga doonayay ama ha ahaada browser ama ha ahaada command line sidan oo kale ah wixii jawaab ah oo uu hayo ayuu soo celinaya. Haddii aan rabo marka sidoo kale haddii inaan waco qaybtan haddaan rabo inaan waco isag qaybtan bateriga dhacay waa dhammayn rabnaa waqtiga waa iska dhamaana waqtiga waa ugu yaryahay laftigiisa waxaan rabaa APIs-kii inta browser kala isticmaal raalli ahaada. Haddaan rabo inaan waco qaybtan kaloo kale what's my name kii kale haddaan rabo inaan waco isagana sidaasoo kale mid isagana wuxuu u leeyahay try baan leeyahay wuxuu isiinayaa wixii aan u baahnaay oo dhan ayuu isiinayaa halkan keelkii aan u baahnaay oo kale ayuu isiinayaa. So marka select baan leeyahay isoo select gare baan leeyahay what's my name API-gaasaan rabaa inaan waco hadayto kan wacay wuxuu ahaa show lul solution change what's my name inuu Axmed ii soo celiyaan rabaa. Sida aragtaan waa isku mid badankiis balse intaas kaliya ku kala duwan yihiin API-ga la wacayo magaciisa ay ku kala duwan yihiin inta hore xataa waa iskaga mid qaybtaas kaliya dambe ayay iskaga kala duwan yihiin oo ah API-ga mid walbaba gooni u ah. Waxaan rabaa inaan ku daro keelka aan sameynayo yaa waxaan rabaa inaan ku daro in verb description badan uu isiiyo oo ah waxa dhacaya markaas sida ay meeshii aan browser ka isticmaali lahayn ayaan command-kan Linux-ka ah keel la yiraahdo isticmaalaynaa. Marka wuxuu sameynayo isla marka aan enter ku dhufto ilaa iyo marka uu jawaabta soo celinayo wuxuu sameynaya haddaan rabo in aan arko waxaan leeyahay sidan baan waxaan leeyahay bahalkii marka wuxuu leeyahay soo ma jeedid halkan nooga sheegaya wuxuu isku dayayaa halkii markii ugu horreysay isku dayay in uu serverka la xiriiro ka bacdi serverkiiba ku xirmay isagoo isticmaalaya local hostigii domain namekii local hostiga maadaama computerkayga uu local ku garaysmayo local host waxay la mid tahay 127.0.0.1 la mid tahay IP addresska ah portka 8080 buu isticmaalay soo ma jeedid wuxuu isticmaalayaa get buu isticmaalayaa methodka la yiraahdo API-ga magaciisa aan wacayna waa kan http
protocolka HTTP 1 versionkiisu yahay baan isticmaalaynaa. Hostigii oo dhammaystiran waa kana. Agentiga laga isticmaalaya browser ma ahan, waa curl baan isticmaalaynaa oo Linux ah. Soo ma jeedid, waxaa la doonayaa inuu accept gareeyo serverku text plain oo accept gareynaya. Authenticationka headerka ku jira usernameki iyo passwordkii sidan baa loo bedelay, halkan dheer baa loo bedelay. Serverkii markii uu la xiriiray wuxuu soo ogolaaday 200 HTTP error code, HTTP status code buu soo celiyey. 200 macnaha waxa weeye wax walbaba si fiican bay u socdeen. Haddii kale 400 iyo waxaasuu kuu soo celinaya, 500 iyo error hadduu jiro. 200 okay waxa weeye markii lala xiriiray si fiican buu u shaqeeyey. wuxuu kaloo noo sheegayaa in uu kaashgareynayo mataqaanaa akhbaartiisa. adigu statii boodid ugu dambeyntii markaas uu dhammeeyey wuxuu noo soo celiyey responsiga ah Axmed Kaafi. Axmed Kaafi waxa weeye API-gaas baa wixii markii inta aan wacnay jawaabtii uu soo celiyey baa saas ah. Haddaad fiirisid oo aan tagno Eclipse-gii oo aan fiirino API-gii la oranayay what's my name, markii lasoo waco waxaa celisaa jawaabta ah Axmed Kaafi. soo ma jeedaan? Marka ujeedka horta ugu weyn waxaa weeye sidan. In badan baad ka fahanteen baan u malaynayaa caawa qaybtan maxaa la yidhaahdaa Eclipse-ga maxaa la yidhahdaa back endiga iyo front endiga qaabka loo isticmaalayo. Halkan haddaad fiirisid Gradle-ku aniga idiin sheegayay. Gradle-ku waa build, wuxuu leeyahay build.gradle filekaasuu leeyahay oo maaragtay ku tusaya pluginkii kuma aana shubinin weli sababta inuu syntax fiican igu qoray ahayd. qaabkan buu ku qoran yahay sidii Maven oo kale XML kuma qorno. isaga wuxuu ku qoran yahay wax la yiraahdo sida Java camal oo bahalkii ah Groovy luqad la yiraahdo ayuu ku qoran yahay, balse way ka fududahay maaragtay maxaa la yiraahdaa kan kale way ka fududahay. tusaale ahaan dependency-ga oo kale hoos ayay ku jiraan waa la tusayaa. qaybtan interrepository-ga ku xirmaya dependency-ga uu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay jhipster buu u baahan yahay. versionka kor baa magaceeda kusoo sheegnay. waxaan u baahannahay internal library oo dad kale oo open source ay qoreen. Firebro inta weynan uu la eg yahay. Spring Boot baan u baahannahay in lagu soo daro. Hibernate baan u baahannahay in lagu soo daro. maaragtay transaction security, status security buu leeyahay. intaasoo wax buu leeyahay. database on MySQL in lagu daro oo H2 la yiraahdo ayaan doonayaa programka lagu daro. MySQL markaan ku xirmayo waxaan u baahanahay library-gan Java-ga ah baan u baahanahay. waxaasoo dhan markaad akhrisid aad gudihiisa toos uga arki kartid wey. halkaasaan ku joojinayaa. qaybta kale ee repository sida mataqaana markaad business logic aad u samaysatid aad u diraysid iyadana waa ina tusi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo.